kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada warka telefishinka caalamiga ee Burdare fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe noo saar qodobada ugu door karona waxaa kamid ah xildhibaanada labada aqal oo war ka soo saaray dadkii lagu dilay magaalada Qaraxyo galmudug oo ka hadashay sida ay wax uga dhaceen Qaraxyo dawladda Soomaaliya oo ka hadashay dadkii lagu laayay magaalada Qaraxyo koonfur galbeed oo ka hadashay 9 ruux oo lagu dilay magaalada Qaraxyo iyo qarax ka dhacay magaalada Muqdisho intaasi waxay ayaan daawadayaal qaar kamid ah qodobada warka haatan ku soo dhawaada asagiyo faahfaahsan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa war ka soo saaray dadkii lagu dilay magaalada Qaraxyo xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee golaha shacabka iyo aqalka sare ayaa codsaday in si degdeg ah baaritaan loogu sameeyo dadkii lagu dilay magaalada Qaraxyo xildhibaanada labada aqal ayaa sheegay in falkaasi uu ahaa mid si weyn looga naxay isla markaana loo baahan yahay in maamulka galmudug ay gacanta ku soo dhigaan kooxihii ka dambeeyay dilka waxa ay sidoo kale tilmaameen in loo baahan yahay baaritaano dheeraad ah oo lagu sameeyo dadkaasi oo ay dileen maleeshiya hubaysan oo ka caraysan sarkaal xalay lagu dilay magaalada Qaraxyo saraakiisha ciidanka galmudug ayaa sheegay in dilka dadkaasi uu yimid kadib markii kooxo hubaysan ay magaalada Qaraxyo ku dileen sarkaal ka tirsan ciidanka nabad sugidda galmudug isla markaana dadka deegaanka ay ceersadeen laba kamid ah kooxihii dilka geystay kadibna gurigii ay galeen laga soo saaray 10 ruux ayna dileen 9 kamid ah koox deegaanka ah oo ka caraysan dilka sargaalka nabad sugidda ka tirsanaa sidoo kale dawladda Soomaaliya ayaa ka hadashay dadkii lagu laayay magaalada Qaraxyo dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ambaareysay dadkii shacabka ahaa ee lagu laayay magaalada Qaraxyo xarunta galmudug wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareey ayaa sheegay in falkaasi uu yahay mid naxdin badan isla markaana ay baari doonaan sida ay wax u dhaceen waxa uu sheegay in gacanta lagu soo dhigi doono cidii ka dambeysay falkaasi isla markaana maamulka galmudug uu ugu baaqayo inay gacanta ku soo dhigaan dambiilayaasha saraakiisha ciidanka galmudug ee Qaraxyo ayaa sheegay in dilka dadkaasi uu yimid kadib markii kooxo hubaysan ay magaalada Qaraxyo ku dileen sarkaal ka tirsan ciidanka nabad sugidda galmudug ayaa ka hadashay sida ay wax uga dhaceen magaalada Qaraxyo duqa degmada Qaraxyo Xirsi Yuusuf Barre iyo taliye ku-xigeenka ciidamada booliska galmudug Korneel Cabdi Jaamac Cabdulle Xabeeb oo si wada jir ah warbaahinta kula hadlay Qaraxyo ayaa sheegay inay socdaan baaritaano waxa ay sheegeen inay si weyn uga xun yihiin dilwadareedkii xalay Qaraxyo loogu geystay dad shacab ah oo la sheegay inay ka soo jeedaan deegaanada maamulka koonfur galbeed taliyaha ayaa sheegay inay ku raad joogaan kooxihii ka dambeeyay falkaasi lagu dilay 9 qof iyo dil kale oo xalay loo geystay Ali Dhiif oo ka tirsanaa ciidamada nabad sugidda galmudug ugu dambeyntii mas'uuliyiinta ayaa sheegay in aysan dhici doonin in kooxihii geystay dilka Ali Dhiif iyo shacabka inta badan aysan ku dhuumaalaysan Qaraxyo isla markaana ciidanka galmudug ay ku jiraan howlgal weyn oo ka socda magaalada Qaraxyo sidoo kale koonfur galbeed ayaa ka hadashay 9 ruux ee lagu dilay magaalada Qaraxyo maamulka koonfur galbeed ayaa ka hadlay 9 ruux oo xalay si wada jir ah loogu dilay magaalada Qaraxyo kadib markii maleeshiya deegaanka ah ay ku eedeeyeen inay dileen sarkaal ka tirsan ciidamada nisa ee galmudug ugaas xasan wasiirka warfaafinta ee koonfur galbeed ayaa warbaahinta qaar u sheegay in dadkaasi ay ka soo jeedaan deegaanada maamulka koonfur galbeed wasiirka ayaa warbaahinta u sheegay in baaritaano ay wadaan isla markaana saacadaha soo socday warbaahinta la hadli doonaan ugaas xasan ayaa xoosay inay jiraan dad badan oo koonfur galbeed u dhashay kuwaasoo cabsi awgeed xalay ku hooyan waayay guryahooda ku yaala magaalada Qaraxyo dhawaan ayay ahayd markii uu maamulka galmudug beeniyay inuu soo saaray amar la sheegay in deegaanadiisa uga mamnuucayo dadka ka soo jeeda maamulka koonfur galbeed ugu dambeyn 2 qarax oo waaweyn ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho qarax si weyn looga maqlay qaybo badan oo kamid ah magaalada ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho qarax ayaa loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa waxaana uu ka dhacay agagaarka isgoyska sayidka ee magaalada Muqdisho goobta uu qaraxu ka dhacay waxaa ka agdhow xarumaha wasaaradaha amniga iyo arrimaha gudaha iyo sidoo kale xarunta golaha shacabka daawadayaal halkaad nagala socotaan waa telefishinka caalamiga ee Burdare war wixii dalka daafaca caalamka naga soo gaaray waa naga intaas fadlan haddii aad naga cusub tahay subscribe noo saar like iyo share na raaci